بسم الله الرحمن الرحيم. ummadda Soomaaliyeed baan la hadlayaa. Clip-kani waa clip macnaha jamac ummadda Soomaaliyeed oo dhan aan kula hadlayo way. xaafad gooni ama aha ummadda Soomaaliyeed oo dhan inay fahmaan waxa dib u heshiisiinta marka lagu leeyahay waxaan wada ognahay oo runa dhibaato dhex martay dadka. dhibaatadii dadka dhex martay ilaa dadku waa dad Soomaali weeye, waa dad Ilaahay meel ku wada abuuray. qabaa'il ahaan haddii la eego Soomaalidu waa hal qabiil. geeska Afrika hal qabiil bay ka tahay. run baan idin sheegayaa, halkaa qabiil jifooyin baanu u kala baxbaxnaadee oo dad qabaa'il oo qaab qabali ah u deganaa baanu ahayn weligeenba. marka jifada aan u kala baxsannahay dhibaataana dhex martay. dhibaatadaa markana dhex martay qaabka looga heshiinayo dowladda federaalku shuqul kuma leh. run baan idin sheegayaa, sababta ayna shuqul ugu lehna waa idin sheegayaa. dowladda federaalku ayaga naftooda ayaa loo baahan yahay inay heshiiyaan. ilaan gobollada oo dhan dadkii laga soo doortay ayaa federaalka ku dhan. qoladaa federaalka ku dhan oo gobollada laga soo doortay maaragtay ayaga naftoodu horta marka hore inay heshiiyaan wey ayagu. laakiin heshiiska bulshada Soomaaliyeed dowladda federaalku shuqul kuma leh. sababtana waa idin sheegaya. waxaa loo baahan yahay xaafaduhu inay heshiiyaan. xaafadaha deriska ah, derisku inay heshiiyaan. dhib baa dhex maray, waa la ogyahay, wax macnaha la qarin karo maaha. laakiin xaafadahu inay ayagu heshiiyaan wey. stateba stateka kale, state keliya maaha qabiilba qabiilka kale oo wada degan. ilan stateka keliya macnaha stateba stateka keliya inay maamulku dad meel ku shiriyaan oo sidaa ku heshiiyaan is not enough. heshiisku waxa weeye xaafadba xaafadda kale, derisba derisku inay ayagu intay shiraan xaafad u shiraan. oo dadku ilan waa xaduud baa dhex yaalla, waanu isla ognaaye dadku xad bay kala leeyihiin. xadkaasna waxa weeye systemkii iyo dhibaatadii dhacday maaragtay dhibaatadii dhacday iyo systemkii aan waddanku hadda uu ku dhisan yahay baa jira. kol hadday taas jirtana waxa weeye dadku inay ayagu hoos ahaan u heshiiyaan. inay hoos ahaan u heshiiyaan oo xaafaduhu ay heshiiyaan oo odayaashu ay waxaa ka shaqeeyaan oo culimadu ay ka shaqeeyaan oo salaadiintu ay ka shaqeeyaan. ma garanaysaa? oo nabadoonnadu ay ka shaqeeyaan. oo macnaha dowladda federaalka aba intaan la gaarinba dowladda federaalka markay imaanaysa xaafadaha already xaafaduhu inay heshiiyaan wey.